kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska mirinaayo oo u muuqda in mar kale ay ka taagan tahay xiisad hor leh kadib markii ciidamo ka amar qaata taliyaha nabad sugidii sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ee waqti xaadirka ninka lagu magacaabay ibraahim ay tageen guriga uu degan yahay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage halkaana ay isku hor fadhiyaan ciidamada ilaaladu waa jenaraal odowaa yuusuf raage maxaa haddaba keenay in mar kale mirinaayo ay xiisadani ka taagan tahay ciidanka loo diray odowaa muxuu yahay qorshahooda faahfaahinta ayaan kugula wadaagi doonaa soo dhowow muuqaalka like saar arkidaada qaybta faallada ee kommentiga ku dhibo si aad mar kasta u noqoto daawadaha ugu horreeya ee halkan aynu kula wadaagno guud ahaan wararkii warbixinada ku saabsan soomaalida iyo caalamka kusoo biir janalka oo calaamada subscribe-ka noo taabo muuqaalkana like gare oo sii sheer gare ha hilmaamin in qaybta faallada ee kommentigana aad ra'yigaaga nagula wadaagto mar kale isgoyska mirinaayo maanta waxaa ka taagan xiisad aad u xooggan taasoo u muuqatay mar kale ay sababi karto gacanka hadal dhex mara ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka ilaalada waa taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaa yuusuf raage wararka naga soo gaaraya degmada cabdicasiis gaar ahaan isgoyska mirinaayo waxay sheegayaan ciidamo kala duwan oo isugu jira nabad sugidii sidoo kale ciidamo militariya oo ka amar qaata taliyaha nabad sugidii sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ee wakhtiga ninka lagu magacaabay ibraahim inay tageen guriga uu degan yahay jenaraal odowaa yuusuf raage iyagoo sheegay inay wataan waaran iyo oggolaansho ku aadan inay doonayaan baaritaan ay ku sameeyaan guriga taliyihii hore si ay uga baaraan hub iyo sidoo kale saanad militari oo culus laakiin jenaraal odowaa yuusuf raage iyo sidoo kale ciidankiisa ayaa gebi ahaanba gaashaanka u daruuray doonista ciidamada ay dileen mahad salaad iyo sidoo kale ibraahim waxaana uu sheegay inuusan marnaba raalli ka ahayn baaritaan lagu sameeyo gurigiisa maadaama aysan jirin sabab keenaysa wakhtigan in shakhsi ahaa taliyo hore islamarkaana aan wax doora ku lahayn isdiidooyinka ka taagan magaalada muqdisho in gurigiisa la baaro waxaa halkaasii ka taagan wakhti xaadirkan xiisad iyo sidoo kale in dhinacyadu weli ay ishor fadhiyaan ciidanka jenaraal odowaa yuusuf raage ayaa gebi ahaanba xirtay waddooyinka soo gala hoyga taliyaha iyadoo lasoo warinayo inay durbo markaasi difaacyo adag ay samaysteen islamarkaana ay koreen dabaqyada ka agdhow hoyga uu degan yahay jenaraal odowaa yuusuf raage taliyaha ayaa sheegay inuusan marna raalli ka ahayn in gurigiisa baaritaan sharci darraah lagu sameeyo ilaa uu helo waaran maxkamadeed oo oggolaanaya in gurigiisa baaritaan lagu sameeyo sababta loo baarayana ay noqoto mid cad oo isagu markaasi lala wadaagay uuna ku qanacsan yahay inta ka horraysana uu arko tallaabo sharci darra ah oo la doonayo in lagu bannaysto dhiiggiisa guud ahaan degmada cabdicasiis gaar ahaan isgooska mirinaayo ayaa wakhti xaadirkan u muuqda inay ka taagan tahay xalad cadkiran iyadoo dadku ay dareemayaan cabsi kale oo aad u xoogan kana baqayaan in mar kale halkaasi uu ka dhaco iska horimaad dhex mara ciidamada taabacsan dhinaca markaasi jenaraal odowaa yuusuf raage iyo sidoo kale dhinaca ciidamada dowladda federaalka soomaaliya halkaasi u dirtay gaar ahaan taliska wakhtigiisu u dhammaaday guud ahaan xaaladda muqdisho marka la fiiriyo waxay u muuqataa inay ku jirto marxalad aan degganayn marka loo eego muddo 4 sano ah oo magaalada muqdisho ay dareemaysay xaalad deganaanshiya laakiin tan iyo wixii ka dambeeyey 15kii bishii May markii uu dhammaaday muddaxileedkii sharciga ah ee xasan sheekh maxamuud waxay magaaladu gashay xaalad qubanti la'aana iyadoo saacad kasta la filan karo in halkaasi ay ka dhacaan iska horimaadyo u dhexeeya garabka mucaaradka ee diidan muddo kordhinta madaxweynaha iyo sidoo kale xukuumadda wakhtigeeda uu dhammaaday ee xasan sheekh uu hoggaanka u hayo marka laga soo tago isdiidooyinkaasi sidoo kale dhaqdhaqaaqyadaasi waxaa dhanka kale markaasi soconaya dadaallo ay wadaan wakiilada beesha caalamka ee C6+ oo ay ku doonayaan in xiisadda muqdisho guud ahaanba lagu soo dabaalo jawi nabdoon dhinacyadana lagu qasbo inay miiska wadahadalka ku laabtaan kala heshiiyaan wax kasta oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka